galleydan aad u jeedaan waa galley ka baxday dalka Soomaaliya waxaa loo yaqaanaa cambuulo galley waa galley markaasi daawo u ah waxyaabo badan aan ka soo qabto laba waxyaabood gaaska waxay u tahay daawo gaaska daawo u tahay calool majiirka sidoo kale daawo ayay u tahay aniga hadda gaasaan ka caabtaa baashaasan cunaa waa ku quraacdaa waa ku qadeeyaa gaaskii iyo calool majiirkii iyo intiiba waa ka soo naaday maasha Allah marka dadka waxaan leeyahay daawada ka raadinaya meel dheer qarash badan ku bixinayo galleydan aad u jeedaan waa raqiis koombadeeda waxaa la gadaa 7,000 oo shilinka Soomaaliya marka dollar ahaanna waa 0.6 meelaas senti waayo ama 0.4 marka baashaan hal la cuno baashaas waa daawo ma xashirinaysid buunshaha kama bixinaysid waad dhaqaysaa markaad dhaqdo iyadoo sideedii geesaheedii iyo buunshihii wadato aad waxaad dabka ku shubaysaa markay karsanto waad cunaysaa maraqeedana waa cabaysaa maraqay leedahay oo biyaha lagu kariyo ah haddaba baashaan ha la ogaado bariis iyo baasto iyo waxyaabahan kale aad iyo aad ayay u fiican tahay gaas ma leh way daawo u tahay shukumaanka caloosha way nadiifisaa waxyaabo badan daawo u tahay caloosha mindhicirada waxyaabahaas dheefshiidka daawo u tahay marka baashaas yaa lama ogaanin koombo iska soo gado 7,000 oo shilin bixi iska karso ma qarash badno waa kaas macsaro ku darso ama malab ku darso waa kaas daawo loo bogay maasha Allah aniga hadda koor waxaan joog u ahay gabar ka cabanaysay caloosha isbitaal tagtay leeyiri cambuuladan cun bis wax kale ma la soo dhiinba cambuulada galleyda oo la xashirin buushigeeda wadato cun haddaba Soomaaliyeey ogaada daawada meel dheer laga raadiyo ilaahay daawada hayo balse waxyaabaha burka iyo dufanka iska daaya cambuuladaas oo biyo bis lagu kariyo hal cuno waas insha Allah war ku daawo doontaa oo caafimaad doontaa calooshana wax weyn baa ka dareemi doontaa insha Allah